الرحمن الرحيم كلنتو عنا wanaagsan ardayda idaawanaysa waa casharadeen imtixaanaha ay ku baranayno online-ka waa chapter-kan inoo socday trigonometry-ga gaar insha Allah casharkiisa 20aad maanta duubi doona wana book isku ogeyn book isku yara dhaxdaadina waxbaan dhinac isku yara raacinay marka tangent identity-ka insha Allah eegi doona tangent identity-ka waxa idin qaybtii component angle identity-ka uu raaco laakiin waan kala yar saarsan maadaama bookba uu kala saaray page-ka book aad kala soconaysaan waxa weeyaan 250 page 250 ilaa page 350 casharka isku yaala bookga page number-ku waxa weeyaan page number-ka casharada isku qoran yihiin waa 250 ilaa 450 ayuu ku yaala exercise-kiisuna xagga dambe ay ku yaala wala la isinkeeni 20aad bal insha Allah waxaan eegi doonaa tangent identity waa maxay macnaha waa inuu hore u soo dhiganay compound angle identity ama compound angle formula waa inuu kala sameeynay sum and difference formula sum and difference formula ama identity waa la dhahay hore waxaan soo dhiganay bilowgii single angle identity baan soo dhiganay single angle compound marka leena waa laba angle oo la isku geeyay ama la kala jarayo waa inuu hore soo dhiganay waxa loo yaqaanay double angle angle-kii baa la lebilaabaya single-ka baa la lebilaabaya waa inuu soo dhigan half angle identity oo casharka horeeyaan soo dhiganay insha Allah waxaan eegi doonaa tangent-ka hadaba sin-ka iyo cos-ka marka hore ka soo hadlaynay sin of compound angle iyo cosine of compound angle sin of double angle iyo cosine of double angle ban ka soo hadlayn maanta insha Allah waxaan eegi doonaa tangent identity-ka compound-kiisa iyo double-kiisa insha Allah eegi doonaa why sum and difference identity ama formula waa leeyahay balada tangent-ka ayaan eegi doonaa qaacidada tangent-ka koowaad waxay noqonaysaa tan balada alpha plus beta alpha plus beta alpha is an angle and beta is another angle if we are combining hadeen isku daro single angle been helena laakiin waynu kala jabinayna hadhow qaacidada lagu helo marka halkaas plus tahay waxay noqonaysaa in proof gareyn doonaaye tan alpha aan leenahay plus tan beta waynu cadeyn doonaa divided by baan leen eg waxaan idhi tan alpha plus tan beta waxa loo qaybinayaa 1 minus tan alpha iyo tan beta balada haynu cadeyna marka hadaba qaacidaas waa markay plus ka tahay haday minus ka tahay egteeda labaad ee tan alpha minus beta waa markaynu kala jarayno halka sare ayaa minus noqonaysa halkana plus isku bedelo waxay noqonaysaa tan alpha minus tan beta divided by 1 by noqonayna plus tan halkaas plus noqonaysa maadaama xagga sare minus noqotay waa marka halkaas minus tahay xaggoosa plus noqonaysa tan alpha tan beta way balada xabada koobaad baan proof gareynaa hadaba xabada koobaad ayaan proof gareynaa xabada koobaad baan halka ku cadeynaa waxaan leenahay ta koobaad baan soo qaadanay proof it waxaan leenahay tan alpha plus beta sidee ku timid baan leenahay cadee intaan qaaday dhinacan waxaan leenahay kan muxuu ka yimid sin alpha plus beta maadaama taanku markuu rabo ku sin loo qaybshay cos balade divided by malena cos alpha plus beta waa beta halkaasi way fidi marka xagga sare wanaag soo dhiganay sin compound angle ama sum and difference of sin compound angle-ka xagga sare maxay markaa noqonaysaa sin alpha cos beta balada arday halka fiirso mar haday sin tahay halkana labada angle ay isku geyn tahay sin iyo cos baa la saacinay plus bay noqonaysaa haddana waxay markaa cos alpha sin beta ay noqonaysaa sin beta oo loo qaybshay baan leenahay waxa badda koobaad baan proof gareynaya way cos baan odhanaynaa halkan mar haday cos tahay waa cos double cos laba cos baa israacay cos alpha iyo cos beta haday halkaas plus tahay hore waxaan soo dhignay ardayo ina minus tahay sin alpha sin beta hadaba halka markaad baranayso si aan hadaba u soo saar qaacidadeena koobaad taasi waxaan sameeynaa dhinac walba waxaan u qaybinayaa hooseeyaha iyo sareeyo cos alpha cos beta divide waxaan leenahay divide both the numerator and the denominator waa sareeyaha iyo hooseeyaha waxaad u qaybinaysaa sareeyaha hooseeyaha by cos alpha cos beta sareeyaha oo dhan waxaad wada qaybinaysaa cos alpha cos beta hooseeyaha oo dhan waad wada qaybin xaggana tagi doonaa maxay noqonayaa implies hadaba xagga sare u qayb halka sare maxay noqonaysaa sin alpha cos beta
waxaan arday u qaybinaya intaasi cos alpha cos beta halka balas bayno balaskaas aan soo qaadanayna xagga sare waxay noo yeelaa cos alpha sin beta u qaybiyadna intiin le cos alpha cos beta why divided by main division kana waa kaasi main division waa ka qacantaan ku hayo halkan maxaa hoos marka hore noo yeelaa cos alpha cos beta u qayb hadaba cos alpha cos beta why minus waa minus kaasi sin alpha sin beta waxaad u qaybinaysaa cos alpha cos beta why haddaba halkii cancellation wixii isku cancel garoobaan isku jarjarayna cancellation method baan isticmaalayna halka arday maxay isla baxaya labada cos beta way isla baxeen halkan arday maxay isla baxay labada cos beta way isla baxeen arday halkan labada cos alpha iyo labada cos beta way isla baxeen wax kale isla baxaya ma jiro xagga sare maxay noogu haray sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha why waxa halkan inoo yeelo cos alpha plus halkan maxay noogu sin beta cos beta why divided by baan leeyahay halkan 1 bay noogu haray maadaama inta way cancel garoobeen 1 bay noogu haray why minus kaas waa ka halkan maxay noo yeelaa sin alpha cos sin beta divided by cos alpha cos beta haddaba halkaa waxaan xasuusanaynaa notice ogsoonow waxaan oran naqaanaa sin alpha divided by cos alpha maxay u dhigantahay ardaygu tan alpha sidoo kalena sin beta divided by cos beta iyadna maxay u dhigantahay waa tan beta mid kasta halkeeda hadaba ku bedel waayo xagga sare maxay noo yaala markaa waxay noo yimid halka tan alpha maadaama aan notekiisa sin alpha divided by cos alpha inuu dhigantahay tan alpha plus baan leenahay sin beta divided by cos beta sin beta divided by cos beta waa maxay tan beta labadan gal way kala duwan oo soo ardaygu waa alpha iyo beta divided by baan leenahay 1 minus halkan maxaan ku bedelaa sin alpha loo qaybsho cos alpha waxaan ku bedelayaa tan alpha cos sin beta divided by cos beta na waa tan beta therefore halkan maxaan ka fahmay tan alpha plus beta inay u dhigan tahay tan alpha plus tan beta oo loo qaybshay 1 minus tan alpha lagu dhuftay tan beta halkaas ayaynu ku proof karaynay waxaan dareemayaa inaad adna sidaas si leeg xabada kale aad u qaban doonto as exercise ahaan ayaan ka filayaa way balad waxaan ka shaqeynaynaa xabad tusaale aynu qaban doonaa example-keena koobaad waxa layna yidhi wuxuu yidhi evaluate garee find tan 75 find tan 75 adoo isticmaalaya using component kala identiska tan 75 waa tusaalaheena solution bookgeena ayuu ku yaalla waan iskara dhaadhaafinaya tusaalayaasha waxaan arday soo qaadanaya tan baan leenahay 75 degree haddaba waxaan leenahay 75 degree-ga ayaa laba u kala jebinaya I broke into two different angles baan u kala jebinaya labada angle u kala jebinaya waxay noqonayaan 45 plus 30 degree if you add you will get 75 badalisa laakiin tan 75 without using a calculator ma soo saari kartid sideen u soo saarayna markaas 75 I can simplify without using a calculator ka maxaa la socdaa find tan 75 without using a calculator ayaa ku jirta calculator kadib maxaa leenahay hadaba halkaa tan baan leenahay 75 ka maxaa leenahay 75 wuxuu u dhigay baan leenahay tan 45 plus 30 degree maxaan ka dhigay compound baan ka dhigay markaa kadibna waa full intaan qaadanayna maxaa lagu hela qaacidada tan baan leenahay waa tan 45 plus tan 30 degree oo loo qaybshay baan leenahay 1 minus I use this formula tan 45 degree iyo tan
30 degree halka marka daba taagna waxaan dib u noqonaya special noun angliskeena aynu hore soo dhiganay tan 45 arday muxuu ahaa baan leenahay tan 45 1 baynu ahaa waa 1 my plus baan leenahay kana muxuu taagnaa arday radical 3 over 3 divided by baan leenahay 1 minus 1 times tan 45 aan bedelay kan sidii soo qaatay kana bedelay kana waan bedelaya waa radical 3 over 3 hadaba halka markaad arday marin taagan tahay 1 soo qaado plus 9 soo qaado radical 3 over 3 divided by halkan waa 1 minus kala jaran labadan maadaama labadan ay isku dhufasha ka dhaxayso don't subtract this one and this one don't subtract ha kala jaran simplify gare 1 ka xagga sare ku dhufo radical 3 over 3 hadaba halka markaan marayno waxaan sameyn karaa LCM ka xagga saraan fudaynaya 3 gaasan halka ku dhufanaya kaana waan geynaya waa 3 plus radical 3 divided by baan leenahay 3 loo qaybshay qaybtu waa taa qaybtaasi division kaas waa taa kana fuday ka ku dhufa kana ka jar waxaan leeyahay waa 3 minus radical 3 over 3 hadaba halka markaan marinayno division ki waa kan xagga dambe way iskala rogaysaa waxaan masaa 3 plus radical 3 divided by 3 times 3 xagga sare qaybta dambe kala rogmaysa divided by 3 minus radical 3 labada 3 arday way isla baxeen maxaa halka ka soo baxay 3 plus radical 3 divided by 3 minus radical 3 waana sii fudayn kartaa waad sii rationalize gareyn kartaa halkaana waad ku dayn kartaa rationalize gareyn kartaa waa maxay conjugate-ka ayaan ku sii dhufan doonaa halkaas calaamadaas waa minus sareeya iyo hooseeya waxaan ku dhufan doonaa markaan leeyahay sii fududee conjugate-ka hooseeya conjugate-ka isagoo calaamadaas oo bedelaan sareeyana ku dhufanaya hooseeyana ku dhufanaya halkaana waad ku dayn kartaa waay insha Allah waxaan eegi doonaa tusaaleena labaad ee buugga inoogu yaala oo proof noqon doona tusaaleena 12 kaas wuxuu noqonayaa kii 13 sii dhaafiyay way hadda inta waxaan malaynayaa inaad la fahantaan malayn su'aashaasi wixii noocaas oo kale kusaasoo kale tan 105 oo kale hadii soo saar lagu raaho tan 115 oo kale hadii lagu soo saar ee su'aalahan oo kale hadii la weydiiyo arday hadii su'aalahaas oo kale la weydiiyo waxa la oran karaa evaluate garee adoon calculator isticmaalin tan 15 oo kale eegada tan 105 oo kale dhammaan kuwaas oo kale tan 160 oo kale kuwaas oo kale la weydiin karaa adoon isticmaalayn calculator way baladalkan inta tagna tusaale kale ayay neegna qaybiro proof ayay neegi doona oo isla 10 kana buugeena ku taala way horena waxaan ku sheegay in tusaalayaasha sira dhaadhaafinaysa oo kale fududaan soo kala horeysiinayno way buugu marka waxaan oranayaa tusaalaani proof daad buu noolay waxaad proof karaysaa tan 20 buuga ku qoran tahay examples number uma sameeynayo way proof that bal waxaad proof that tan 20 degree plus tan 25 plus tan 25 lagu dhuftay tan 20 degree equal in u dhigan tahay tan afwan halkaasi tan 20 degree plus tan 25 degree oo loo sii geeyay tan 20 degree haye tan 20 degree waxa lagu dhufanayaa tan 20 degree waxa tusii dhufanaysaa tan 25 degree inuu dhigan tahay 1 inta proof gareebaa la inta cadde waxa la tan 20 degree oo lagu daro tan 25 degree plus tan 20 degree oo lagu dhuftay tan 25 degree inuu dhigan tahay 1 proof gareebaa la hadaba halka waxaan arday waaqaana xagga dambe ayaan ka qaadanayna solution markaan tiro kale buugaaga waxa ku taala example-ka 12 weyn example 12 weyn example 12 buu kugu qoray buugaaga kana wuxuu kugu qoran yahay example 13 way kala horeeyaan ku kala horreysay way hadda waxaan qaadanaynaa qaybta dambe qaybtan ma cadeyn karno ma bedeli karo intan laakiin kaasaan qaadanaya hore waxaan kugu sheegay arday notice note tan 45 muxuu dhignaa baan leenahay waa 1 tan 45 wuxuu dhigay waa 1 maadaama tan 45 uu 1 u dhigan yahay kana furfuraya hadaba kanaan furfuraya oo si aanu furfuraya xagga dambe ayaan qaadanaya baa dhinacan ma cadeyn karo 1 kaasaan qaatay waxaan ku dhigtay xagga bidixdaan qaatay baan ku midigta afwan midigtaan qaatay 1 kaas muxuu ka yimid baan leeyahay
tan 45 wuxuu ka yimid 1 kii marka halka waxaan ku bedeli karaa tan 45 kadibna intaan qaadanaa daba tan 45 kana kala jabinaya tan 45 waxaan u kala jabinayaa baladada fiirso tan waxaan u kala jabinayaa 20 degree plus 25 degree waka oo qaybtan maxay noo tahay qaybta dambe ayaa midigta ayaan qaatay si aan qaybtan hore u helo way tan 45 waa 1 buu dhigay haddaan intaan soo qaato waa 1 way balada fidintan maxaan daba aragnay dhinacan waa dhinac midigta weeyaan bidixdan doonaya kan fidi waxaan waa tan haye 20 degree plus tan 25 degree divided by 1 lay haye waa 1 minus tan 20 degree plus afwan times tan 25 degree haddaba halka markaan ardayo marinayno maxaan aqaanaa intan maxay u taagan tahay baan leeyahay intan waxay noogu taagan tahay 1 bay u taagan tahay it's equal to 1 1 kale ku keenid waa tan 45 ayaa u taagan haddaba cross isku dhufo maxaan ku tan 45 marka hore miyaan warhayn tan 45 oo inta kala jabiyay ayaa inta noqotay kadibna tan 45 oo xaqan dhigtay waa 1 kan haddaba cross isku dhufo inta marka maxay balance karaysay 1ka xaqan cross isku dhufo tan 20 degree haye plus tan 25 degree plus 1 ku dhufo intan tawa intan ba soo noqon haddaan xaqan ku dhuftay xaqan cross waxa weyn 1 minus tan 20 degree tan 25 degree haddaba halka markaan marinayno ardayo halka markaan marinayno hadda waxaan sameeynaa dhinac baan isku soo marinayaa waxiis leh dhinac baan isku soo marinaynaa way barta marka hadda marinayno waxaan odhanaynaa equal ba halka ku jirta afwan equal ba halka ku jirta maadaama intaan soo qaatay intaan xagga isku dhuftay equal ba ku jirta haddaba dhinac isku soo maray inta soo wareeji marka maxaan helay tan 20 degree plus tan 25 degree soo wareeji haddaba inta dambe plus bay qaatay intaas tan 20 lagu dhuftay tan 25 equal 1 aan ku yiri cali haddaba halka 45 waa tan 45 xagga midigtaan qaatay marka 1 kaas halku ka yimid baan leeyahay 1 ku wuxuu ka yimid tan 45 halka waxaan dhigtay tan 45 marka tan 45 inuu 1 la u dhigan yahay inuu 1 halka u dhigan yahay marka tan 45 baan kala jiro waxaan dhigay tan 20 plus tan 25 ana qaacido compound-ka isticmaalaya kan haddaba qaacidintan uu noqday 1kiina waa kan xagga daba kan cross baa markaa isku dhuftay marka inta qaybta ku dhuftay intan baa soo noqotay equation dhexe kadib maxaa intaasaan soo wareejiyay intana markaa soo baxday marka bidixdii oo 1 maxay noqotay midigtii oo 1 maxay noqotay bidixdii waa kan halkaas markaa taana ku proof karaynay waxaan ku dari doonaa xabad kale ayaan ku dari doonaa haday u dhigan tahay pi of 4 then inta ka proof that waxaad proof karaysaa baa la yiri waxaad proof karaysaa 1 plus tan a 1 plus tan a 1 plus oo lagu dhuftay 1 plus tan b inuu dhigan yahay 2 inuu dhagato solution baa leh ugu horeyn arday waxaan ka fikirayaa maxaa given leynasiya baan leh maxaa given leynasiya waxaan aqaanaa waxa la siiyay a plus p inuu dhigantahay a plus b inuu dhigantahay pi over 4 oo haddii aan si kala niraano waa 45 degree 45 degree hadda halka fiirsan 45 degree kadibna waxaan aqaanay hore waxaan u aqaanay baladalka fiirsan waxa la yiraahdaa if a plus b hadda u dhiganta pi over 4 then prove that tan u socdaa laakiin xaggana ka soo maraya marka hore waxaan a plus b waxa u dhigay pi over 4 oo u dhigan 45 haddaba waxaan dib ugu noqonayaa kana kala jibin waxa leeyahay waxaan hore u naqaanay xaggan tan ma ku dhufanay xaggana tan dhinac walba waxaan leeyahay tan a plus p waxa u dhigan tahay tan 45 degree tan 45 degree
oo hore waxaan ku sheegay tan 45 markaa waxaan samaynaynaa fidi hadda markaa kan inoo fidi waxaan odhanaynaa halkan eega ardayo firsalka fidi waxaan odhanaynaa tan a plus tan p divided by baan leenahay 1 minus tan a tan p waxay u dhigan tahay baan leenahay markaa hadda eeg waxaan qaadanay a plus b waxaan hore u dhignay baan pi over 4 oo 45 45 labadana macna isku mid ah labadaas macna isku mid ah way marna waa radian marna waa degree haddaba intan xagga waxaan ku dhuftay tan xaggana waxaan ku dhuftay tan xagga marka taa ku dhuftay waa tan a plus b xaggana tan ma ku dhuftay tan 1 marka muxuu dhignay tan 45 arday muxuu dhigan yahay waa 1 cross haddaba isku dhufo cross isku dhufo way cross baan isku dhufanayna marka maxaan odhanaynaa halka markaan marinayno waxaan odhan karaa hore waxaan u naqaanay cross markaan isku dhufto waxaan odhanaynaa tan a plus tan p waxay u dhigan tahay qaybtan sida halkan 1 baa inoo yaala cross markaan isku dhufto kana xagan ku dhacay waa 1 minus tan a tan p barta hadda markaan marinayno bartaarda markaan marinayno waxaan sameynaynaa conjugate-ka ayaan ku dhufanaynaa waxaan leenahay dhinac walba jinaya qaybtan soo wareeji waxaan leeyahay tan a plus tan b lagu daray qaybtan soo wareejiye tan a lagu dhuftay tan b equal 1 adaba yeeshay waxaan leenahay bismillah halka markaan marayno waxaan sameynaynaa cross markaan isku dhuftay intan inoo soo baxday waxaan soo wareejiyay intaasaan soo wareejiyay xaggan plus bay qaata marka 1 ba xaggan marka ka nimid waxaan leenahay marka add both on both sides of the equation dhinac walba waxaan ku daraynaa add 1 hal baan ku daraynaa dhinac walba add 1 on both sides of the equation equationka waxaad ku daraysaa dhinac walba hal haddaba halkaa ka dar waa 1 lagu daray tan intan way isla socotaa tan a plus tan p haye plus tan a tan lagu dhuftay tan b equal xaggana waan ku daray waa 1 plus 1 haddaba halkaa inoo soo yaro dala maxaan markaa odhanaynaa halkaa markaan haddaba ardayga marinayno halkaa waxaa inoo yaalla halkaa waxbaan ka saaraya tan baan halkaa ka saari doonaa waxaan odhanaynaa tan 1 ii soo qaad cafwan halkaas waa 1 plus tan a haye lagu daray tan p xaggan tan ka saara daba qaybtaa tan baan ka saari karaa intaa tan baan ka saari karaa waxaan ka saarayaa tan b halkaa maxay ugu hadhay ardaygu waxay ugu hadhay marka halkaa tan ka saaro 1 plus haye markaan tan b ka saaro waxay ku hadhay 1 plus tan a way halkana 1 baan qaybtan ka saarayadna qaybtaa horena 1 baan ka saaray qaybtaa factor out 1 baan iyadna ka saaraya way halkaa maxaa inoo yaalla markaa labadana isku dar 2 kadib ardaygu labadan waa same common factor isku xidh labadana isku xidh waxaan leeyahay halkan waa tan waa 1 plus tan a mid ahaan ka soo qaada labadan kalena gaar isku xidho waa 1 plus tan p waxay u dhigan tahay 2 hadda halkaan fududeeyaa halkaa 1 more thing ayaan ku daray halkaa waan yara fududeeyaa halkaa markaan ardaygu taagana waan yara fududeynayaa ayag waxaan idhi dhinac walba equation ka aan haysana xagga sare hal ku dar waa 1 plus baan leenahay tan a plus tan p plus tan a lagu dhuftay tan p inay u dhigan tahay 1 haddaba halkaa markaan taaganahay qaybtan eeg qaybtaasi tan b baa laga saari karaa qaybtana 1 baan ka saari karaa waxaan halkaa 1 baan qaybtaa ka saaray halkaa haddaan saa isugu xidho qaybtana gaar saan isugu xidho maxaan ka saari karaa halkaa 1 baan ka saaray waa 1ka halkaa maxay nooga saaray markaa 1 plus tan a qaybtana maxaan ka saaray halkan tan a baa ku jirta halkan tan b baa ku jirta halkan tan b mid ka saar waa kan
maxaa halkan inoogu soo haray marka 1 halkaasa waa ka tan a b hore u baxday equal 1 marka halka markaan taagana xaggana 1 ka baan ku daray hadee dhinaca 1 kan ku daray ayaan dhinacana ku daray waa 2 marka waynaga hel labadana marka isku xiray waa kan labadana mid baan ka soo qaatay waynaga proof karaynay bal waxaan eegi doonaa haddii rabbi qadaro waxaan eegi doonaa tusaale buugga inoogu haray 16aad buugga tusaalaha 16aad ee buuggeena ku yaala ayaan eegi doonaa tusaalahaasna muxuu noqday evaluate garee waxaa la evaluate garee 16 example 16 evaluate baa la yidhi without using a calculator tan 60 degree plus tan 69 degree tan 69 degree divided by 1 minus tan 60 tan 69 degree tan 69 degree taa qiimaha marka la eego waxaan marka hore ardayga ka fikiray inta fududeynteedu maxay ahaan jirtay marka hore waxaan leeyahay solution waxaan aqaanaa how sida loo compensate gareeyaa hore waxaan u dhigay tan alpha plus tan beta tan alpha plus beta inay u dhignaan jirtay tan alpha plus tan beta oo loo qaybsho 1 minus tan alpha tan beta maxaan markaa haystaa qaybta dambe ayaan haystaa alpha inaga halka maxay noogu taagan tahay alpha waxay u taagan tahay 66 beta arday maxay u taagan tahay 69 degree balade qaybta dambe markaa haystaa qaybta horaan markaa doonaya maxaan ku soo koobayaa marka halka therefore waxaan leeyahay tan balade qaybta marka aad haysato waa qaybtani de qaybtana doonaysa marka waxay noqonaysaa 66 plus 69 degree inta markaa isku dar marka compound baa idinka single ka dhig tan labada isku dar 130 degree hadda 130 sidoo qiimeynaysa evaluate garee baa lagu daawadiisina calculator marka waxaan aqaanaa tayta maxaa kan taagantay hal angle bay noqotay 130 waa is in quadrant 2 maadaama quadrant 2 tahay therefore reference ka baan raadinaynaa waa 180 degree oo laga jaray tayta maxaa soo baxay 180 degree oo laga jaray 130 degree oo u dhigan 45 degree waaxdana waad garanaysaa marka taanku waa negative ka waaxda ayaa keentay taan maxaan qaadanayaa reference ka kan tixraaca kan 45 marka tan 45 na wuxuu dhigay -1 halka marka maxaan ka fahmay therefore tan 66 degree plus tan 69 degree divided by 1 minus tan 66 degree tan 69 degree inuu dhigantahay -1 halkaas ayaan insha Allah ku soo gabagabayn doonaa intaan xiisada ku xigta ku kulmi doono noqon doonta laysankeena 12aad. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.